warar kala duwan ayaa ka soo baxaya duqayn xalay ka dhacday deegaanka Mubarak oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose iyadoo la sheegay in diyaarad ay gantaal ku riday goob ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab. dadka deegaanka Mubarak ayaa warbaahinta maxalliga u sheegay inay maqleen jug culus oo duqayn ay fulisay diyaarad waxaana lala beegsaday gaari Soomaalidu u taqaano caasiga oo lagu soo raray qudaar. wararka qaar ayaa sheegay in gaariga lagu soo qariyay waxyaabaha qarxa waxaana la sheegay in bartilmaameedka duqayntu uu ahaa gaariga. lama oga khasaaraha ka dhashay duqaynta lama oga diyaaradda duqaynta fulisay hase ahaatee waxaa la isan yahay in ay ahayd diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee laga leeyahay dalka Mareykanka. dhowr jeer hore Mareykanka ayaa duqaymo ka geystay deegaano ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose kuwaas oo lagu dilay hogaamiyaal sare ka tirsan ururka al-shabaab. gobolka Shabeelada Hoose ayaa ah gobolka inta badan ka dhacaan duqaynta ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxaana Mareykanku uu dhawaan sheegay in uu kordhinayo duqaynta cirka ah ee uu geysanayo al-shabaab. Dirashiid Xasan Cabde, Hoon Cable TV, Muqdisho.